وايلك تليه انت جاي دود يا halkan waa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxa halkan ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxa ka dhacday rasaas baa gudaha jeelka ka dhex socota walaalnimo hayo jeelka rasaas baa ka dhex socota waxa la sheegayaa lama hubo siday wax u jiraan marse ilaa hadda jeelka rasaas weyn baa ka dhacday qoryaha la galay baa la sheegayaa jeelka ciidamada asluubta oo dhan baa jeelka isku xeeray bilayska ciidamada oo dhan baa hadda ku sugan goobtani waa jeelka hortiisa xabad waxay ka dhacaysaa jeelka gudihiisa waxa la ii sheegay halkan inay ku dhaawacmeen askar badan oo ciidamada asluubta ah ee jeelka ilaalinaya ayaa dhaawaca wararku si ay sheegayaan halkan ciidankii oo dhan baa jeelka isku xeeray wadooyinka ayaa la xidhay halkan wadada ayaa xidhan wadadani waa wadada hormarta jeelka weyn ee magaalada Hargeysa jeelka weyn ayaa waxa ku yaala bartanka caasimadda Hargeysa ciidamada asluubta ayaa isku wada xeeray qoryaha la galay ciidanka dhagaxaan baa gudaha lagala dhacay sida la ii sheegayo sidoo kalena ciidamada oo dhan ayaa halkan soo gaarayay gaadiidka gurmadka ciidanka kala duwan ee bilayska iyo ciidamada asluubta ayaa soo gaaraya boqolaal ciidamo ayaa isku yimid halkan haatan jeelka gudihiisa ayaa xabadu ka dhacaysa waxa ugu weyn ee meesha yaala waxa weeyaan in jeelka xabada ka dhacaysa ay tahay in gudihiisa jeelka ka dhacayso saas darteed waxay muujinaysaa xabadu in jeelka lala galay qoryaha oo qoryo jeelka gudihiisa lala galay sida aan ka maqlay qaar ka mid ah ciidamada booliiska waxa dhaawacmay ciidan badan baa dhaawacmay ciidamada saldhigyada kala duwan baa hadda soo gaaray goobta way akirantay banaanka hore ee jeelka weyn ee magaalada Hargeysa taliyaashii saldhigyada mid xabadu gudaha ay ka dhacaysaa ma jirto cid dibadda u baxday ilaa haatan laakiin waxa la ii sheegay sida saraakiil bilaysi sheegeen inay dhaawacan yihiin askar fara badan oo gudaha lagu dhaawacay oo cid qoryaha la gashay ay ku dhaawacday ciidamada la dagaalanka argagixisada ayaa hadda soo gaaray jeelka hortiisa ciidamada la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaan RRU-da ee tababaran ayaa hadda u daadanaya jeelka gudihiisa oo hadda soo gaaray jeelka gudihiisa mayo caadi banaanka waa banaanka tali waa dacwo waa banaanka wadadaynu ka hadlayno iska duubo saari doonta way tali wad maasan ها وايتلي وانقات هاي ودوينك oo dhan waa la xidhay ha ilaa hadda lama garanayo waxa gudaha ka socda laakiin wadooyinku waa xidhay sad arkaysaan ciidamada RRU-da ee la dagaalanka argagixisada ayaa hadda gudaha u galay jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxa wada xidhay dhammaan ciidamada qalabka sida ayaa wada xidhay wadooyinka tobanaan baabuur oo ciidamada booliiska ah goobtooga حاج ايه ساعات الله ما سيدي سيد عدي تلي حالته واسدا إذا ما بليس على داوعي ولا قاضي وإذا ما أسلوبته ciidanka asluubta ayaa jeelasha ilaaliya Soomaaliland oo dhan ciidanka jeelasha asluubta oo ah ciidan muddooyinkii ugu dambeeyay si xoog u dhismayay isla markaasina ahaa ciidan si fiican loo tababaray nidaamkooduna kor u kacayay sanooyinkii ugu dambeysay ayaa waxay yihiin ciidamada ilaaliya jeelasha ee loo yaqaan asluubta iyaga ayaa isku xeeray hadda ciidanka la dagaalanka argagixisada ee tababaran oo iyaguna ku tababaran qalabkoodii wajigu duuban yahay ayaa hadda u daatay jeelka gudaha u galay iyaguna dad dhaawac ah ayaa jeelka ka soo baxay oo iyaga laftoodu dacweeg taliyahan wada hadalay stage haji waa dhigaysan taliyahan wada hadalay taliya dacwade ومسك وارني كان دعوينه وارني ما قرن سفراي وارنا ما وحدوي وارنا ما قرن
aniga noo kaxay inoo waanaga taliyaha waa taliya daawo anaga wada soconaystay adiga marka adina halka ku dilisay maana ku soo wada dhaafino taliyaha ay كي راي مدوبة عسكري بعد على يده يويا عسكري بعد على نبيل إسكابا يويا أنا وقت قبتي وقت قبتي والله هذا لو كله كله تعال وين اي هذا تو جود عاوز تعالوا نحبسني ما واحد ثاني مركب مركز ليك ليك اسمع وزير سيد وزير تعال انت الحمد لله وزير وزير كرمها جدها الصومالي الآن مدن محمد كاين أحمد أي هدف فوق عريتي الكوين المجال هرقيسة وررك واحد يمشي قايلين محابيست جدها تهي لكن لما هو بين الله هذا وزير كرمها جدها أي هدف قال يشيل الكوين المجال هرقيسة عرض نواصبا حيدرس استوى رما سيلي هاي متفاعلتي سيتي عبد السلام استوى رما سيلي هاي متفاعلتي الحمد لله ما شاء الله إذا هم الدوين كلهم بحرن ما شاء الله اي كانوا يسوون نقدين زير كرمها بداها تاجن هاتن ilaa hadda cid baxsatay ma jirto gudaha ciidan kuma baxsan sheelka ciidamada dhan baa ku wareegsan gudooyinka waa la wada xidhay ammaanka waa la wada adkeeyay بدنا ويستاكتي زير كرمها بدنا نقول كيشوجا
Tiger! On y va, assis, go, go! سكري سكري صعود خصوصا واحد سميسان واي واي هيك عليكم السلام الرصاص waxay ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa gudaha ayay ka dhacday warar sax ah lama hubo aan sheegi karo ilaa hadda sida wax u dhaceen war sax ah oo toos ah lama hubo laakiin waxa la ii sheegayaa inay dhinacna yihiin xabiis gadooday oo gudaha xabada ka ridaysay oo askar dhaawacday dhinacna waxa la ii sheegayaa inay aan warku laakiin saxay nin walaal كلمة تقنع guud ahaan wadada weyn ee jeelka weyn ee magaalada Hargeysa hormarta ayaa xidhan booliiska wadooyinka oo dhan bay xidheen way adagtay in maaragtay wax badan la soo gudbiyo laakiin jeelka weyn ee Hargeysa ayaa imika ciidamadu ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku jira taliyayaasha ciidamada ayaa yimid ciidanka asluubta galay ciidanka aariyada ciidanka bilayska guud ahaanba saldhigu banaankiisa iyo hareerihiisa oo dhami waa ammaan wadooyinka waaweyn horumar oo dhan waa la xidhay cidna lama ogola Yeah. Ha. Way. 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 Way.
Usoo wararka ugu dambeeyay aan ka helayno ciidanka bilayska Soomaaliland iyo ciidanka asluubta waxay sheegayaan inuu goobta ay ku xidhan yihiin argagixisada ciidamadu ay gacanta ku hayaan ee jeelka weyn ay maaragtay kacdoonka sameeyeen إليكس كور وساتي وفي عتين الحمد لله حاجة فريستا السلام عليكم. عليكم السلام. تلي اسكورن. سيلي تلي. في عنتها. الحمد لله. هلو. dabadeen kastay adag tahay inaan si xog rasmi ah idiin soo warrano oo si toos ah idin ku soo gudbino wararka laakiin nuxurka ugu weyn waxa weeyaan ciidanka waxa ku gadooday maxaabiista argagixisada ee ku xidhan gudaha ee ku eedeysan argagixisada ama ku xukuman oo loo yaqaano blog ee ku jira ee jeelka weyn ee magaalada Hargeysa in ka badan 300 oo askari ayaa hadda golay gudaha